أحاديث رمضان وبرنامج aynu ku soo qaadan doono qaar ka mid ah axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta can mucaadi bni jabalin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yaa mucaad أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك فقال الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم rawaahu albukhaariy waxaa laga wariyey mucaad ibni jabalin alla raalliha ka ahaadee inuu yidhi wuxuu yidhi rasuulkii alleh sala allahu calayhi waaalihi wasalam mucaadow ma garanaysaa xaqa uu allaah addoommada ku leeyahay wuxuu mucaad ku jawaabay alle iyo rasuulkiisa ayaa u ogaal badan markaasuu ku yidhi rasuulku sala allahu calayhi waaalihi wasalam waa in alle la caabudo oo aan cidna wax lala wadaajin wuxuu yidhi ma garanaysaa xaqooda ay hadday sidaas sameeyaan ku leeyihiin isaga markaasuu mucaadna ku jawaabay alle iyo rasuulkiisa ayaa u ogaal badan saa rasuulkiibaa sala allahu calayhi wasalama ku yidhi waa in uusan cadaabin bukhaari ayaa wariyey haddaba soonku waxa uu ka mid yahay cibaadooyinka ugu wanaagsan ee allah subxaanahu wa tacaala lagu caabudo waxaana ugu sii fadli badan midka uu isagu inagu farad yeelay ee ramadaanta